يا رمضان سلام مرحب، شعب المسلمين رحب، منتظرين بنترهب، زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaan kasoo gudbinaynaa cashar ku saabsan kitaabu sowm, kitaabka soonka ee kitaabka la yidhaahdo cumdatu saalik wa cuddatu naasik ee fiqhiga islaamiga ah ee madhabka shaaficiyada gaar ahaan. casharkaas insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa qofkii dhagaystaahay inuu ka faa-iideysan doono oo soonkiisa axkaamtiisa si buuxda uu u baro doono. ilaah naga dhiga kuwii inta barta ku dhaqma. kitaabu siyaami, soonkii kitaabkiisii hada maxaluh, soomkii ka waramaya oo ruknigii saddexaad arkaanta islaamka ka mid a, ruknigii afraadan u socda. yajibu waa waajibaa sowmu ramadaana, ramadaan soonkiisii waa waajibaa calaa kulli muslimin, qof kasta oo muslimhu ku waajibaa. muslimkaasoo qaangaar ah, kaasoo caaqilin caqli leh, kaasoo qaadirin awooda cala soomi soonka awooda, maca alkhuluwi asagoo ka maran can xaydin caado iyo wa nifaasin dhiig umuleedkii, dhiig dhalmadii. marka hore wuxuu sheegayaa sheikhu yaa soomka lagu leeyahay. waxaa lagu leeyahay qof muslina, gaal kuma waajibo, hadda lagama dalbayo, hadda soo islaamaa laleeyahy marka hore. haddana muslimkaas inuu qaangaar yahaa shardiya, cunugii yaraa kuma waajibayo, inkastoo ay fiican tahay in lagu sii tarbiyeeyo. caaqil haddana uu yahay, haddii uu yahay qof waalan kuma waajibayo. qaadir cala sowmi, haddana soonka awoodo, macnaha caafimaad qaba, hadduu yahay qof duqoobay oo caafimaadkiisana aan la rajayneyn, soon kuma waajibayo, raashina laga bixinaya. haddii uu xanuunsan yahay, macnaha qaadir cala sowmi, qofkii duqoobay oo aan soon awoodeyn iyo qofkii xanuunsanaa ee caafimaadkiisa aan la rajayneyn, soonkii kuma waajibayo, raashina laga bixinaya. qofkii kale ee xanuunsanaa ee soonka markaas aan awoodeyna caafimaadkiisana la rajaynayay, asaga soonkii ma soomayo, raashinna lagama bixinayo, laakiin markuu caafimaado ayuu soomaya. waxaa kaloo shardiya in qofkaasi gabadhii ay ka maran tahay dhiiggii caadadaha iyo dhiig dhalmadii, labadaasi markii ay socdaan ayana soom lagama rabo, laakiin way soo qallaynayaan. waa kan asaga wixi aan soo sheegnay wixii aan ahayn noo sheegaya. falaa yukhaatabu, lagulama khitaabayo oo lagulama hadlayo, lagama rabo, soon lama leh kaafirun gaalkii, maxaa yaele muslim ma ahan. wa sabiyun, cunugii yaraa, qaangaar ma ahan. wa majnuunun, qofkii waalaa, caqli ma leh. waman ruuxii ajhada uu dhibo ruuxaasi asawmu soonki uu dhibo, likibarin waayeelnimadu u dhibo, waa duq, aw maradin xanuunu u dhibay, xanuunkaasoo laa yurjaa aan la sugayn bur-uhu caafimaadkiisa, rajo lagama qabo inuu ka raysto, sida caadiga ah ilaahay awooddiisa lagama hadlayee. biadaa-in, yacni saddexdaas qof, yacni gaalkii, caruurkii yaraa, qofkii waala iyo qofkii soonku dhibayo waayeel ah ama xanuun caafimaadkiisa aan la sugayn uu hayo, soonka lagulama khitaabayo, sooma lama leh. biadaa-in, gudasho oo hadda sooma lama leh. walaa qadaa-in, soo qallayna lagama rabo. iyo waman ruuxiina lagulama khitaabayo ajhadahu ruuxaas uu dhibo asoomu soomkii, likibarin waayeelnimadu u dhibo, waa duq, aw maradin xanuunu u dhibay, kaasoo laa yurjaa aan la sugayn bur-uhu caafimaadkiisa. biadaa-in, soo gudasho oo soonka hadda inuu guto, aw walaa qadaa-in, iyo inuu dib ka soo qalleey, midna lagama rabo. laakiin yalzamu, waxaa ku waajiba man ajhadahu sawmu, qofkii soonku dhibo, likulli yowmin, maalin kasta waxaa waajib ku ah muddu tacaamin, raashin koobadiis. qofka oo asaga soonka awoodi waayo, duqnimadka ama caafimaad darrada u awoodi waayey, caafimaadkiisana aan la sugayn, waa uu ka duwan yahay kuwa hore. raashina laga rabaa maalin kasta, maalin kasta kooba raashina ayaa laga rabaa. raashinkaasna ma sii bixi karo maalin aan la gaarin, maxaa yeele raashinku wuxuu bedel ka yahay maalinka, laakiin maalmo la dhaafay waad isku jumlay kartaa, taas ogaada. waayahay
maalin kasta raashina laga rabaa. wa yukhaatabu waa lagula hadlaahoo laga rabaa almariidu qofkii xanuunsanaa soonka waa lagula khitaabaa, iyo walmusaafiru qofkii musaafirka ahaa, iyo walmurtadud kii diinta ka laabtay, iyo walxaa-idu gabadhii caadada qabtay, iyo walnufasaau tii dhiig umuleedka qabtay. bilqadaa'i qalla ayaa lagula khitaabaa oo laga rabaa duuna al adaa-i gudashadii ka sokay. gabadhii haddii ay caado qabto ama ay dhiig umuleed qabto hadda soon lagama rabo, laakiin soo qallee laleeyahay. qofkii xanuunsanaa oo caafimaadkiisa rajo laga qabay hadda soon lama leh, laakiin soo qallee laleeyahay. qofkii musaafirka ahaa waddada hayay asagana markuu nagaado soonkii laga rabaa. ogaadana musaafirka waxaa shardiya waa in uusa gurigiisa waagu ugu baryin. hadduu gurigiisa waagu ugu baryo oo macnaha uu fajarka ku dhasho kabacdi uu safro, markaas soonka maalinkaas waa uu soomaya, mana afuri karo hadduusa dhibaatoon. laakiin haddii uu safarka galay intaan waagu ku baryin, maalinkaas hadduu doonana waa soomayaa, hadduu doonana waa afuri karaa, laakiin qalla laga rabaa. sidoo kale qofkii murtadka diinta ka laabtay ilaahan ka magan galnaye asagana hadduu islaamka usoo laabto soonkii soo dhaafay soo qallee laleeyahay. waayahay fa in takallafa hadduu isdhibo almariidu qofkii xanuunsanaa iyo walmusaafiru kii musaafirkaa hadday isdhibaan oo isku kallifaan soonkii oo fasaamaan soomaan, saxa soonkooda waa ansaxaa. kii xanuunsanaa ee aan xanuunkiisa awoodi karay inuu soomo laakiin dhibka uu ku ahaa iyo musaafirkiiba hadday soomaan soonkooda waa ansaxaya. duuna almurtadi murtadka laakiin ka sokay. murtad asaga hadduu iskallifo soonka ma ansaxayo. walxaa-idi iyo gabadhii caadada qabtay, iyo wanufasaa gabadhii dhiigga umusha qabtay, saddexdaasi ma soomi karaan xaaladaas. murtadku waa inuu soo islaamaa, gabadha caadada qabtay ee tii dhiig umuleedka qabto 40 iyo wixii lamida ku jirtana waa inay dhiigga ka dahiroobaan. fa in aslama hadduu islaamo ow afaaqa ama uu soo miyirsado, aw balaqa haddii uu qaangaaro ruuxii, fa in aslama gaalkiia soo islaamay, ow afaaqa waxaa soo miyirsado oo soo naaxay kii waallaa, ow balaqa waxaa qaangaaray cunugii yaraa, muftiran xaaluu yahay kii afuran, fii athnaa'i sawmi soonka fii athnaa'i nahaari dheh maalinkii dhexdiisii ayuu gaalkiina islaamay. maalin soomaka dhexdeed ayaa gaalkii islaamay, cunugiina qaangaaray, qofkii waalaana soo miyirsaday. nudiba waxaa la sunneeyaa alimsaako inay cunada ka joogsadaan, iyo walqadaa-u inay soo qalleeyaana sunno u ah. walaa yajibaani kumana waajibaan. oo gaalka maalinka uu soo islaamay dhexdeeda cuntada inuu iska daawa u fiican tahay, laakiin waajib kuma aha. qallana lagama rabo. qalladu waa u sunna laakiin lagama rabo, waajib kuma aha. cunugii yara hadduu maalin ku dhex qaangaaro, qaangaarka wuxuu ku dhex qaangaaray kaa biyihii manidaha helay, waxa weeye maalinkaas inuu cunada iska daayo waa u fiican tahay, uuna maaragtay soo qalleeyo, laakiin waajib kuma aha. qofkii waalla hadduu soo miirsado ilaahay xiskiisa usoo celiyo, inuu maalinka dhexdiisa inuu cunada iska daayo waa u fiican tahay, soona qalleeyo maalinkaas, laakiin waajib kuma aha. wain balaqa hadduu qaangaaro ruuxii saa'iman xaaluya kii sooman uu qaangaaro, lazimahu waxaa ku waajiba alimsaaku afhaysi, wanudiba waxaana la sunneeyaa alqadaa-u soo qallayn. awal waxay ahayd ruuxii asagoo afuran ayuu ama qaangaaray ama soo islaamay ama soo miyirsaday. maantay cunugii yaraa ayaa qaangaaray, mathalan ba inta seexday asagoo 15 gaarin ayuu seexday, waa isku qarwaba, biyihii manida haayo hela, marka maalinka dhexdiisuu qaangaaray waana soomay. horta inuu ka joogsado cuntada waa waajib maalinka inta harto, soonka inuu maalinka dhamaystira waajibi ku tahay. waxaana loo sunneeyaa maalinkaas inuu soo qalleeyo soonkii ramadaankaha caadiga ahaa uu usoo qalleeyo, waa u sunno. waayahay wuxuu yidhi walow tahurat ilxaa'idu gabadhii caadada qabtay haddii ay dahirowdo, amsakad waa ay ka joogsataa nadban sunno ahaansho, waqadad waana ay soo qallaysaa xatman waajib ahaan. gabadhii iyadoo caado qabta ayaa maalinkii u dhashay, laakiin maalinkii dhexdiisa caadadii ka go-day. inay horta cunno aysa cunin sunno ah mar haddii caadadii ka go-do maalinka soon dhexdiisa, laakiin inay maalinka soo qallaysa waa waajib maadaama qeyb ka mida ay daahir noqotay.
aw qadima waxaa soo galay ama waxaa soo galay almusaafiru musaafirkiiya gurigiisa yimid aw bari almariidu ama qofkii xanuunsanaa ee xanuunka rajada laga qabay lahaa ayaa raystay walxaal humaa labadoodaani mubdiraani ay afuran yihiinoo musaafirkii asagoo afuranuu reerkiisii yimid kii xanuunsanaana asagoo afuranuu bagsade amsaka waa af haystaan nadban sunna ahaasho waa sunna inay af haystaanoo cunno aysa cun kow maalinkaas ay ka joogsadaan cunto waqadayaa waana soo qalleeyaan xatman waajib hasho waa waajib inay soo qalleeyaan maalinkaas labadooduba maxaa yeele mar kastaba waa soo qalleynayeen maalinkaas aw saa'imaani ayagoo sooman ayaa musaafirkiina gurigiisa yimid kii xanuunsanaana raystay amsakaa cuntada way ka joogtaan oo af haystaan xatman si waajib ah waayahay marka qofkii xaaladda uu ku jiraa la fiirina markasta walow qaamad haddii ay istaagto albayinatu markhaatigii biru'yati aragtidii ayay ka markhaati kacday yowma shakiga maalinkiisii ayaa markhaati la helay wajaba waxaa waajiba imsaaku baqiyatihi ruuxa macnaha maalinkaas intiisa hartay in cuntada laga joogsado iyo waqadaa'uhu in lasoo qalleeyo maalinka shacbaan uu soddonka yahay yowmu shakiya la yidhaahdaa haddii shuruudii yowmu shakiga laga helo maalinkaas marka in la soomo ayadoon waxba lahayn waa xaaraam nabigaa la caasiyay calayhi salaatu wasalaam maalinkii waaba iska afurnaba yowmu shakigii markaasaa waxaa yimid markhaati dad markhaatiyahoo shuruudii markhaatiya laga helay ayaa yimid oo yidhi annagaa aragnay shalagala bishii haddii sidaas ay dhacdo markhaatigaas ay yimaadaan oo yowmu shakigii maalinkaa ay caddeen in ramadaan ay noqotay cuntada in laga joogsado waa waajib maalinkaas in lasoo qalleeyana waa waajib maadaama qaybtiisii hore aan lasoo soomin wa yu'mar waa la faraa asabiyu cunugii yaraa bihi soomkii ayaa la faraa lisabcin 7 ayaa lagu faraa wa yudrabu waana lagu edbiyahoo licashrin 10 waa la garaaca yacni ganaaxa la geliyaa wey hadda garaaca tumid kaliya looma jeedo in la tumo tumidda meelo aan la ogolaynaba jirta marka ganaax ayaa lagu geliyaa noocii markaas uu markaas cunugii ku edabsamayo oo cibaadadii uu ku aqbalayo ayaa lagu ganaaxaa maaha in oo babta laga garaaca meelahaba cunuga dhanba lagaa qaadanaya haddaad taabatidba korkiisa marka macnaha eraygan wayudrabuda waxaa looga jeedaa macnihiisu ballaaran yahoo cunugii waa lagu ganaaxaa ganaax hadda dadkii qoloba si u ganaaxaysaa cunugaaga adaa yaqaan sidii uu ku edabsamayo waxaas uu uga cabsanayo wa yubiixu waa uu banneeyaa ruuxii alfitra macnaha wa yubiixu waxaa banneeya dheh alfitra afurka waxaa banneeya halkan wuxuu sheegaya waxyaalaha keeni kara qofku inuu afur waxaa banneeya halabatuljuuci gaajadii oo daraatay qaalib noqoto macnaha iyo wal cadash onke qofku haf in naftu ka tiraho ka baq gaajo xun ayaa inta qabatay hadda ma ahan ilaahaya ku ogow ha isdhihin masalada inta maqashid alla maanta gaajadaydu waa daranta haddaad ka baqdid naftaada haddaad u baqdid ee masaa-ishii booraysiga banay jiroo kale ay noqoto waxa weeye waa kuu banaantay ina afurtid naftaada haddaa u baqdid oon ama gaajo bixaysu meel ayaa uu afuri karaa yaksha uu ka cabsanayo alhalaaka dhimasho ama iyo wal marada xanuun oo in xanuun qataraba ku dhaco uu ka baqayo gaastari uu ka baqay waxaa ka mid a xanuunka qatarta mathalan dadka qayba waxaa isticmaala bahalkan inhalerka leeraho neefta la isku afuufo qofka neeftu markay qabato dadka qayba waxay yidhahdaan bahalkaasna waa isticmaali kartaa oo afka lagu afuufayo qofka neeftu qabato soonkana waa wada kartaa laakiin taas sax ma ahan dhaqaatiirtu waxay sheegaan bahalkaas in maado caadiya ku jirto oo dawo ah daawadaas marka dhuuntaada hadday gaarto soonkaa waa buraya marka laakiin haddii aadba gaartidba xaalad aa u baahatoodan adkaysa karin oo neefta u baqaysid inaa afurtida xaq u leeda hadhowna waa soo qallaynaysaa walow dara-a haddii uu soo kordho walow dara-a haba soo kordho fii athnaa'i lyawmi maalinka dhexdiisa haba soo kordho dhibaatadaasi gadaa haba ka timaadee idaa shaqa sawmu soomku haddii uu dhibo oo waxa weeye waxaas oonka khatarta ah ama gaajada khatarta ah ee aada halaaga ama xanuunka uga baqday haddii oo maaragtay ay maalinka dhexdiisa yimaadaan soonkuna uu ku dhibo inaa afurtaad xaq u leedahay laakiin ogow adigii ilaahay ayaa is og qof calooshaada ka warqaba ma jiro
haddaad khatar ka baqdid wey bas. laakiin haddii nafta iyo shahwaadka aad tira war waa anugu waa soomanaha waa afurana gaas tariiqan ka boqoosaa waa cunaya, ma jirto. ilaahay waa kaa goynaya saa ku og, asaga awalba u soomaysa. wa safarulqasri gaabinta safarkeedii in faaraqa haddii uu faaruqo alcumraana darbigii dhismihii ayaa soonka afuriya. macnaha wuxuu sheegayaa waxyaalaha kaleo soonka in la afuro keeni kara waxaa ka mid ah haddii uu ruuxaani safar salaada lagu gaabi karo uu galo. wa safarulqasrina afuruu keena goorma in faaraqa qofka musaafirka hadduu faaruqo alcumraana magaalada dhismaheeda qabla alfajri intaan waagu baryin. wa in nawaahu haba niyeysta soonkii min alleyli habeenkii haba niyeystee, min alleyli habeenkii haba soo niyeystee, marba waagu intuusa baryin hadduu magaalada ka baxo soonka qofkaasi waa jebi karaa, musaafirnimad ayuu ku tirsan yahay. laakiin haddii waagu uu ugu baryo meeshii magaaladiisii dhexdeedii soonka ma afuri karo hadduusa naftiisa u baqan. fa in saafara hadduu safra bacdahu waa berigii ka bacdi falaa ma afuri karo ilaa inuu naftiisa u baqa moogiye. walfitru afurkii lilmusaafiri musaafirkii u afuro ayaa afdalu u fiican in dara soonku hadduu dhibayo musaafirkii in darahu soonku hadduu dhibayo hu musaafirkii. qofka musaafirka hadduu soonku dhibayo ku dhibtoonaanayo afurka u fiican. wa ilaa haddii uusa ku dhibtoonaanayn fa sawmu soomkii afdalu u fiican. walow khaafat halkan wuxuu ka sheegayaa gabadhii uurka laheed waxaa la mida midda nuujinaysa. waa 3 masale, masaladaas ogaada. gabadha uurka leh ama tan nuujinaysaahi horta iskama afuri karaan. waxaa qaarkood gabdhaha qaarkood waxay moodaan hadday walacdaba ama uur ay yeelato ama cunug ay nuujinayso inay hore ka afurayso, cabsi inay meesha soo gasho ayaad ku afuri kartaa. gabadha waxay ku afuri kartaa uur kale ama nuujinaysa cabsi. cabsida marka 3 maado wey. hadday nafteeda kaliya u baqdo gabadhaasi, ama ay nafteeda iyo caruurkeeda u baqdo, oo tan uur kalena cunugii caloosh ku jiray u baqday iyo nafteeda, tan nuujinaysana cunugii inuu caana ka waaya ka baqday iyo nafteeda wada socda. labadaas macnaa ayada nafteeda kaliya u baqday ama nafteeda iyo cunugiyo wada jiray u baqday, soonka way afuri kartaa. baqatin run hadduu meesha soo galay. ko hadhow wayna soo qallaynaysaa, wax raashinana lagama rabo. laakiin haddii ay cunuga kaliya u cabsato, cunuga kaliya hadday u cabsato oo tan uur kalena cunuga kaliya u baqdo, tan oo bahalkii nuujinaysana cunuga kaliya u baqdo, way afuraysaa. soonkana way soo qallaynaysaa. maalin kastoo afurtana kooba raashin ay ku daraysaa. masalada saas way ogaada. wuxuu yihi walow khaafad haddii ay baqdo xaamilun gabadhi uurka laheed aw murdicun tii nuujinaysa hadday baqdo calaa nafsihimaa labadooda naftooda u cabsadeen kaliya, ow amase calaa waladayhimaa labadooda caruur kaliyaha u cabsadeen, waayahay afdarataa waa ay afuraan, waqadataa waana ay qalleeyaan. way afuraan waana soo qalleeyaan. laakin tafdiyaani fidye ayay dhiibaan cinda alkhawfi cabsidii agteeda markay cabsadaan cala alwaladi cunugii ay u cabsadaan. cunug hadday u cabsadaan kaliya wey. laakiin naftooda kaliya ama waxaa la mida naftooda iyo cunugoo wada jira hadday u cabsadaanna raashin ma dhiibaan maadaama naftooda cabsida ay ku jirto. likulli yawmin maalin kastana waxay dhiibayaan oo u ahaaday muddun kooba raashina. walaa yajibu ma waajibayo soomu ramadaana ramadaanka soonkiisii. halkan soonku muxuu ku waajibi karaa ilaa biru'yati lhilaali bishii la arkideeda maana wax kale kuma waajibo. ko fa in qumma haddii la qariyo oo la daboolo wajaba waxaa waajiba istikmaalu shacbaana shacbaan in la dhamaystiro 30 soddon la dhamaystiro. huma yasuumuuna ka bacdi waa soomaan. haddii shacbaanka 30 la buuxiyo dadku waa soomayaan yaan bishiiba la aragi. wa in ru'ya haddii la arko bishii nahaaran maalinkii ayaa la arkay, maalin caddee la arkay, fa huwa bishaasi lileylati habeenka ayuu usugnaaday almustaqbalati la qaabilaya habeenka soo socota. macnaha galabtii casir dheera la arkay, macnaheedu maahan haddii galabtadii hore galabta oo dheer la arko in maanta ay soon aheeda bishu ay shala galab dhalatay maaha. marba haddaan lahayn wax daliilahoo iyo markhaatiya oo sheegay habeenka soo socday usugnaatay. dherarka waa aragteen imaamu nawowi markuu saxiixu muslimka ka hadlayo inuu bisha yaraanteeda iyo weyninkeedu macno male uu sheegayo, xadiid saxiixana uu soo qaadanayo.
aragtida ilaahay u dheeray waa xadiid kale. wain ru'ya bishii haddii la arko fii baladin wadan ayaa laga arkay duuna baladin wadan kale ka sokay, wadan ama laba gobol ama laba magaalo oo kala fogfog, xukunkaana la fiirinaya. fa in taqaarabaa hadday isu dhawaadaan cama alxukmu xukumkii waa camiimay. yacni isu dhawaashaha xaggee laga fiirinaya labadaas wadan waxaa laga fiiriyaa sida raajix ah cinda shaaficiya ikhtilaafi lmataalic, biikhtilaafi lmataalic oo qoraxda isku mar miyay usoo baxdaa, isku mar miyay u dhacdaa. shaaficiyada agteeda saas wey. marka haddii qoraxda isku mar usoo baxdo isku marna ay u dhacdo, mid haddii laga arka kan kale xukunkiisuu leeyahy. haddii laakiin qoraxda ayso isku mar usoo bixin, isku marna ayso u dhicin, mid kasta xukunkiisuu leeyahay. waxaana ay u daliishanayaan xadiidkii saxiixu muslimka ahaa cabdullaahi bnu cabaas qisadiisii iyo mucaawiyo ninkii cabdullahi bnu cabaas lahaa, sidaas ayaa rasuulkan amray sham iyo madiine arrinteydii dib ugu noqdo. cama alxukmu xukumkii waa camima hadday isu dhawaadaan, wailaa haddii aysa isu dhowaan falaa maya, xukumku ma camimayo, mid kastahay aragtideedii suganaysaa. xaggee marka laga fiirinaya isu dhawaashaha? walbucdu fogaashuhu waa kala fogyihin markaan leenahay biikhtilaafi lmataalici, madaalicda kala duwnaanshaheeda ayaa uu ahaaday soo dhalashada qoraxda. kalxijaazi waaba xijaaz wadankii sacuudi hadda loo bixiyey, iyo walciraaqi ciraaq, iyo misra masr, waa kala fogfog yihiin. mid kasta marka waxay leedahay xukunkeeda. waqiila waxaa leedahay bimasaafati lqasri, meeshii salaada lagu gaabi jiray ayaa laga fiirinaya. sida raajixa waxa weye marka ikhtilaafu lmataalic. marka hadda laakiin xukunkaas laguma dhaqmo. haddii la yidhaahdo sacuudiya sheegay, dadka dhan waa qaataan. waxaa la yaab leh markii sacuudi markii laga hadlayo, mar wixiisa waa la qaadanaya, marna wixiisa oo waxaa laleeyahay xarameynka miyaa la khilaafaya, bishii halkaasaa laga sheegay, marna lama raacayo oo la khilaafaya. maalan ba haddii soonka la gaaro waxaa laleeyahay xarameynka miyaa la khilaafaya, bishii yani islaamka la khilaafin ha lagu raaco. haddana taraawiixda haddii la gaaro, xarameynka waxaa laga tukadaa 20 ragco, lama raaco ee waxaa la tukadaa 8 ragco. marka waa yani la jiifiyaa banaan ay dhihi jireen soomaalidu, la joojiyaana banaan. laakiin hadda xarameynka iyo meel kale midna raacidu ma ahan. waxa weeye waa shareecada islaamka, nebi maxamed waa nooga tegay, wadan kastana waa u siman yahay. diin cad uu nebi maxamed ka tegay oo cid kasta u siman tahay, oo aan magaalo heble iyo magaalo heble midna lagu raacin. wayuqbalu waa la aqbalaa fii hilaali ramadaana, ramadaanka bishiisii waxaa la aqbalaa dhalashadeeda, waxaa lagu aqbalaa binisbati haddii loo eego ila soomi soomkii cadlun hal qof oo caadila, waaxidun kaliya, dakarun ee nin ah, xurun xur a, mukalafun ee mukalaf oo qaangaar caqlila ah. hadduu qof noocaasi uu sheego bishii oo shuruuddaas laga helo, waa laga aqbalaya. walaa yuqbalu lama aqbalo fii saa'iri shuhuuri, bilaha intooda kale ilaa cadlaani, laba caadil ma ahana. oo bilaha intooda kale haddii wax ku mudaysan yihiin maalan ba, laba caadil qofaa ahayn lagama aqbalo. sidoo kale ramadaankii laftigiisa hal qofoo caadila marka laga aqbalayo waa binisbati ila soom, laakiin haddii dayn kale iyo waxyaalo kale ku mudaysan yihiin, laba qof ka yar lagama aqbalayo. walow carafa rajulu nin haddii uu yaqaano bilxisaabi, xisaabtii u yaqaanaa, iyo wanujuumi xidigihii u yaqaanaa, falagii iyo xidigihii iyo waxyaalahaasuu yaqaanaa, bishu habeenba meeshay ku aadantuu yaqaanaa. wuxuuna gartay anna qadan bari bilxisaabi, wuxuu ku gartay ninaa wuxuu gartay bilxisaabi xisaabkii, iyo wanujuumi xidiguhu wuxuu ku gartay xisaabtiisa markuu isku dhifsaday anna qadan bari min ramadaana, ramadaan inay tahay ayuu falagii iyo xisaabtii iyo wuxuu ku ogaaday bari inay ramadaantu ogaaday. lam yajibi sawmu, soomkii waajib maahan. inaan anagu raacno hadalkiisa qaadan maaha, waajib maahan. laakiin yajuusu waa bannaan yahay lilxaasibi, qofkii xisaabta yaqaanay, iyo walmunajimi, kii xidiga yaqaanka ahaa, ayuu u bannaan yahay faqadoo kaliya. cid kale uma bannaana inay ku dhaqmaan oo qabsadaan. a'imada qayb shaaficiyada qayb le waa la qabsan karaana waa jirtaa. wain ishtabahad haddii ay isku darsanto ashuhuru bilihiya la kala gara waayo. qof xabsi ku jira, calaa asiirin qof xabsi ku jira, iyo wanaxwihi wax lamida ayaa bilihi iskaga darsameen. ijtahada wuu dadaalaa wujuuban, waana waajib inuu dadaalo. wasaama waa sooma, wuu dadaalayaa, xisaabuhu isku dhifsanaya, dib u noqonaya markuu meesha xabsiga soo galay wax kale, markaasuu ku soomayaa.
haddii hadda uusan ogaa karin wey si kale ku ogaa karin ijtihaadu sameeya. fa in istamara haddii uu sii socdo al-ishkaalu ishkaalkiio yacni kala garasho waagiya uu kusii daa'imo ma kala garan waqtiguu soo galay xabsigan iyo wixii iskaga darsamay waa kala gara waay. marka wuu iska sooma asagu markuu soomana waa u kala caddaa weyd ilaa soonkiis hataa markuu dhamaystay inuu ramadaan waafaqay in kale u kala caddaa weysa ow amase waafaqa wuu waafaqay ramadaanu waafaqaba ow amase maa bacdahu ramadaan wixii ka dambeeya waafaqay saxa soonkiis waa ansaxay. marka bishii markuu inta ku ijtihaado ku dadaalay oo dadaal sameeyey uu soomay 3-4 maada mid wey in uu waxaba kala gara waa weli u kala caddaa weydo soonkiis waa sax. haddii uu ramadaankii waafaqayna waa sax, haddii ramadaan ka bacdi uu waafaqayna waa sax oo qallo u noqdo. laakiin haddii ramadaan ka hor inuu soomay ay u caddaato soonkiisii waa eber uu soo qallayna. wain waafaqa haddii uu waafaqo maa qablahu ramadaan wixii ka horeeya in waafaqa u caddaatay macnaha lam yasixa soonkii ma ansaxay waa inuu kusoo celiya maxaa ramadaan ka hor soonka ma ansaxay. laakiin markii uu ishkaalkii uu kusii jirayna inuu ramadaan waafaqan kasoo qaadayna dadaalkiisu cuskanaya. haddii uu ramadaan waafaqayna hadda waaba waafaqay, hadduu ramadaan ka bacdi soonkiisu noqdayna qallo u noqdo. wa shardu sawmi soomka shardigiisu waa arkaantii ka wada anniyatu niyo weeye waa rukni niyadu. soonka qofku habeen kasta inuu niyeysta weeye inuu beri soomi doono. walimsaaku iyo ka joogsi weeye can ilmufatiraati waxyaalaha soonka afuriya inuu ka joogsado. labadaas rukni waxaa lagu daraa iyo qof sooman in la helo. fa yanwi wuu niyeystaa likulli yawmin maalin kasta wuxuu niyeystaa oo uu u niyeystaa maalin kasta inuu niyeysto waa waajib shaaficiyada agteeda. fa in kaana hadduu yahay soomkii farad haddii uu yahay wajaba waxaa waajiba tacyiinuhu inuu cayino iyo wa tabyiituhu soonkii inuu baryisiiyo min alleyli habeenkii uu baryisiiyo. haddii soomkiisu uu waajib yahay waa inuu cayinaho macnaha niyadaada waa inaad ku dartaa ramadaan inaad soomaysid waa inaad niyeysataa, ama nadar aad soomaysid ama kafaara gud aad soomaysid waa inaad niyadaada ku kala socdaa waxa aad soomaysid. laakiin beriyaan soomaayo ma ansaxayso. ma nadara ma ramadaana ma kafaara guda maxay tahay inaad cayintid marka oo qalbigaaga ka cayintid waa waajib wey. in aad niyadda baryeysidid oo intaan waagu baryin aada niyeysatidna waa waajib oo macnaha habeenkii aada soo niyeysatid waa soonka faradkaa wey. laakiin kan sunnada haddaad waxba cunay subaxdii waa niyeysan karta. wa akmaluhu niyada sida ugu kaamilsan an yanwiya inuu niyeysta weeye sawma qadin beri soomkeed can adaa'i fardi ramadaana haadihi sana sanadan ramadaankeeda faradkeeda la gudashadiisa inuu ka niyeysto lilahi tacala ilahayna u soomay. sidaas ayuu qalbigiisa kusoo xaadirsanaya sida fiican wey. laakiin haddaad niyeysatid beri soom farada ramadaana inaad soomaysid soon ramadaana inaad soomaysid xataa haddaad niyeysatid waa waajib wey. faradnimadku waajib maahan ramadaanka waa wax kala ma noqon karaba. waayahay inuu niyada qalbiga kala yimaadaa waajiba laakiin ku dhawaaqidu sunno wey. walow akhbara haddii uu u sheegahu shaksigaas biru'yati aragtidii waxaa u sheegay leylata shaki habeenkii leylatu shakiga aheeda 30 shacbaan ayaa waxaa u sheegay man yahiqu qof uu ku kalsoon yahay bihi ruuxaas oo miman ruux ah laa yaqbaluhu uusan aqbalayn alxaakimu xaakimkii oo min niswatin dumar ah wa cabiidin addoommo ah wa sibyaanin caruurtiya fa nawaa waana uu niyeysta binaa-an asagoo ku dhisaya calaa daalika arrinkaas fa kaana maalinkiina wuxuu noqday minhu ramadaankii mid ka mid a saxa soonku waa ansax. meeshaan waxa weeye habeenkii 30aada shacbaanka waxaan nidhi ilaa qofku uu wuxuu cuskada helo ma soomi karo waa xaaraan. marka waxaa dhacay habeenkii shacbaan 30 aheyd ee leylatu shakiga noqo laheyd ayaa qof aad ku kalsoontahay wuxuu ku yidhi bishii aniga arkay. qofkaasina maahan qofkii xaakimku aqbalayo. xaakimku soonka markii la joogo wuxuu aqbalaa nin caadil ah oo hal nin oo caadila oo xor ah mukallaf ah. haday ka bataanta waa fiicanta. cadlun waaxidun dakarun xurun mukallafun tii wey. marka dumaraa kuu sheegay dadaa ku kalsoonta dumaraa ku yidhi annaga aragnay ama addoomaa ku yidhi annaga aragnay ama caruuraa ku yidhi annaga aragnay oo ayagu aragtideeda kuu sheegayna waa la yidhi maaha. sidaasaad cuskatood ku niyeysatay maalinkiina soonay noqotaba waa ku ansaxtay.
wain nawaahu haddii uu u sheego min ayri wain nawaahu haddii uu niyeysto beri uu soon iska niyeysto ruuxan min gayri ikhbaari axadin qofna asagoon u waramin axad u waramidiisa la-aantiisa macnaa asagoo qofna dhihin beri waa soon iska niyeysto yidhi iska soom fa kaana wuxuuna noqday maalinkaasi minhu ramadaankii ayuu ka mid noqday waad iska soo niyeysatay xalay leylatu shakigii aad soon soo niyeysatay adoon wax aad cuskata hayn ramadaanayna noqotaba waa caddaata maalin ahaan lam yasixa soonkii ma asaxa maxaa yeeley mar kasta wixii soo socda la fiirinaya adilo ayaa uga guuri kartaa dad aad cuskatid waa inay heshaa rag iyo dumarba sawaan waxaa jazama ha gooyo anniyata niyadii ha gooyo xalay si saxa ha u niyeysto go-an oo amase taradada ha ku taradudo oo ha ku shakiyo ma soontaa mase oo waa kan taradudkii fa qaala wuxuu yidhi waa taradudkii iyo shakigii in kaana ramadaan haddii uu noqdo fa ana saa'imu waa soomanay beri wa ilaa haddii uusan ramadaan noqonna fa muftirun waa afurana saasuu ku niyeystay soonkiisaas waxba kama jiraan marba haddii ramadaan bilowgiisa ay tahay laakiin saan maray ansaxaysaa jirta waa tan walow qaala haddii uu yidhaahdo leylata 30 soddonkii habeenkeedii oo min ramadaana ramadaan ka mida wuxuu yidhi in kaana qadun beri hadday min ramadaana ka mid tahay fa ana saa'imun waa soomanahay wailaa haddii kale fa muftirun waa afuranahay fa kaana min ramadaana ramadaanu ka mid noqdo maalinkaasi saxa waa ansaxa meeshan waxa weeye wuxuu kuu sheegayaa ramadaanka maalinka bilowgiisa haddaad tirahdid beri hadday ramadaan tahay waa soomayaa haddaysa ahayna waa afuranahay ma ansaxayso sababto haddaada waxba aada cuskatay aada helinba niyadaas ma ansaxayso maxaa yeelay mar kastaba wixii soo socdaa la fiirina shacbaana soo socda soomaa shacbaan waxaa uga bixi kartaa in aad niyo jaazimaa la timaadid oo aada meel cuskatid aa uga bixi kartaa laakiin ramadaanku markuu dhamaado maalinka ramadaan u dambeeya aada shakida markaas waxaa tiri berri hadday soom tahay berri hadday soom tahay waa soomayaa haddii soon aysa ahayna waa afurana waa ku ansaxaysaa niyadaas maxaa yeele ramadaanaa soo socday ramadaan maadaama uu soo socday niyadaadaas waa ku ansaxaysaa wayasixu waxaa ansaxaya annaflu sunnadii soon sunnaa waa ansaxayaa biniyati niya ayuu ku ansaxayaa niyadaasoo mutlaqatin la idlaaqay qabla zawaali zuulitaanka ka hor oo waxa weeye intii duhur aan la gaarin intaan duhur la gaarin waad niyeysan kartaa soonkaaga sunnada ah haddii soonku sunno yahay haddaada waxaba cuni fajarkii ka bacdi inta niyeysatid aada saa ku soomi kartaa inta niyeysatid ayaa sidaa ku soomi kartaa marba haddii aan duhur la gaarin fajarkiina uusan kaa dhalan fajar ka bacdina aada waxba cunina ujeeda waayahay halkan wuxuu sheegayaa masaa'il fara badan oo soomka inay burinayso iyo inaysan burinayn aan u baahannahay inaan kala ogaano wuxuu yidhi marka wain akala hadduu wax cuno aw shariba hadduu cabo aw istacadda sanku daawo iskaga shubay aw ixtaqana gadaal xagga dabadiiu daawo iskaga shubay aw saba ama wuxuu ku shubay fii udunayhi fii udunihi dhegtiisuu daawo ku shubay fa wasala wuxuu gaaray dimaaqahu maskaxdiisii uu gaaray maskaxdiisuu daawadii gaartay aw adkhala ama wuxuu geliyey isbacan far ayuu wuxuu geliyey aw gayrahu ama wax kale fii duburihi dabadiisuu geliyo maalan ba dhaqtaraa fiirinayoo geliyey oo ama maaragtay wax kaluu geliyo daawo ah aw fii qubulihaa gabadhiyaa farjigeeda gelisay wax far iyo wax lamid oo daawo waaba la baaraba saa dhaqtarkii geliyey waraa maa shay gadaashiis ayayna farta gaarsiiday gabadhaani ama macnaha dhakhtarkii baarayaa geliyey ama xataa qalab oo baaritaanahay geliyeen camera iyo wax kale maa shay gadaashiisay gaarsiiyeenna yabduu muuqanaya cinda alqacdati fadhiga agtiisa oo gabadhi marka ay fadhiisato xibinkeeda taranka inta farjigeeda inta kasoo muuqanaysa meel ka shishaydaa wax la geliya iyadoo la baarayo ow amase wasala waxaa gaaray ilaa jawfihi gudihiisa calooshiisa ayaa waxaa gaaray shay-un shay oo min dacnatin mudid ah toorey iyaa lagu daabo caloosha ka gasha ama waxaa la geliyaba qaliina ah waxbaa lagu muday oo la baarayo aw dawaa-in ama daawa gudihiisa gashay aw taqaya-a ama waa ismatajiyey aw jaamaca ama xaaskiisu u tegay
aw baashara ama xaaskiisuu la cayaaray fii maa duuna alfarji farjiga meelaan ahayn oo kala cayaroo jirkeeda kala ah fa anzala markaasaa biyihii shahwada ka soo baxeen aw istamnaa ama maaragtay biyihii manidaahay oo gacanta iskaga keena waana kabaa'ir xaaraam weeye dembi weyn weeye shahwadii gacanta iskaga keena fa anzala markaasuu biyo ka baxeen aw baalaqa ama wuxuu ku xeel dheeraaday oo madaxa la taagay fii madmadatin luqluqi markuu weysaysanayo uu isla jacariiriyey aw istinshaaqin sandaarsigii biyihii uu sanka ku daaranaya markuu weysaysanayu jiiday fa nazala biyihii ayaa wuxuu ku degay jawfahu xabadkiisaoo maskaxdiisay galeen aw amase akhraja wuxuu soo saaray riiqahu candhuuftiisuu min famihi afkiisa ka soo saaray candhuuftiisuu afkiisa kasoo bixiyey carabkiisa hadduu raba ha ku soo bixiyo waxaa la mida kamaa idaa jara waaba inuu jiido alkhayta xaraggii uu mathalanba samaynayo afkiisa ku jiiday fii famihi afkiisuu ku jiiday cinda fatlihi markii uu samaynayay ama soo hayay fanfasala waxaa raacay oo soocmay calayhi xariggii korkiisa riiqun candhuufa raacday huma radda waa uu soo celiyey riiqii candhuuftii wa balaca wuxuuna laqay riiqahu candhuuftii xarigga raacday banaanka u baxday moogta markaasuu xariggii markale afka inta ku celiyo candhuuftii ka hartay uu laqa candhuuftii banaanka u baxday aw balaca wuxuu laqay riiqahu candhuuftiisuu laqay mutaqayiran xaalatay mid isbedeshay waayahay oo say isku bedeshay kamaa idaa fatala waaba inuu soohay khaydan xarig ayuu samaynayay fataqayara xarig mathalan rinjiyu lahaa afkaad mariso oo ku qoyso dadka xargaas ama qaarkood saa sameeyeen fataqayara waa isbedelay candhuuftiisii ayaa isbedeshay bisibqihi xarigga rinjigiisii isku bedesho candhuuftii kalar yeelatay oo amase kaana wuxuu ahaaday candhuuftiisia wuxuu noqday najisan najaasa ayuu noqdo mutanajisuu noqday kamaa idaa damiya waaba inuu dhiigoobo famuhu afkiisiya dhiig yeeshay fa basaqa waa uu tufay candhuuftii uu iska tufay xataa safaa ilaa uu saafi noqday riiquhu candhuuftiisa ilaa ay caddaatay macnaha saafinimadkan daahira noqoto maahan maadaama aada luqluqan laakiin waa caddaatay walam yaqsilhu mana mayrin afkii oo ma luqluqan laakiin candhuuftii maadaama ay saafi noqoto iska caddaatay muusa mayrin afkii markaasuu candhuuftii laqa aw ibtalaca wuxuu laqay nukhaamatan xaako maahan candhuuf caadiya xaako ayuu laqay oo min aqsal fami afka meesha ugu fog ka timid xaaka maskaxda kasoo degtay ama xaaka xabadka ka timid ayuu laqay isagoo og waqadara waana uu awooday calaa qatcihaa inuu inta iska soo gooyo iyo wamajiha inuu tufu awooday fa tarakaha wuu iska dhaafay ma samayne xataa nazalad ilaa ay gadaal ugu degtay oo u laqay candhuuftii maskaxda uu kasoo goynayay ama xabadka kasoo go-aysa isagoo awoodo inuu inta iska soo jaro tufo ay hungurigan inta timid kore ayuu laqay ilaa ay hoos u degtay aw dalaca alfajru ama waagiyaa ku baryay walxal huwa ruuxaani yujaamicu uu xaaskiisii la kulmayo uu shaqo ku jiro fastadaama shaqadiisii iska sii watay hawshiisii u dhammaystirtay xaaskiisii uu ka watay aw walow laxdatan wax yar haba ahaatee hadduuba inta ogaado waagu inuu ku baryay isagoo shaqo wada uu sii wata xataa wax yar ola kac saas ay tahay walxaal huwa madkuurkan waxa aan soo sheegnoo dhan fii jamiici daalika intaasoo dhan walxaal huwa shaqsigii fii jamiici daalika waxa aan soo sheegnoo dhan kasoo bilow markuu wax cuno waxaasoo dhan daakirun uu xusiisto lisoomi soomka uu xusiisto caalimun uuna ku cilmi leeyahay bitaxriimi waxaan xaaraam inay yihiin intaas hadday sidaa ay dhacdo meeshii aan kasoo bilowna wax cunidii waxabidda isagoo soonkii xusiista inay xaaraam yihiinna og haddii waxaas uu sameeyo batala sawmuhu soomkiisa waa buraa wa calayhi waxaana korkiisa ahaada alqadaa inuu soo celiyo maalinkaas wa imsaaku baqiyati nahaari maalinka intiisa hartay in uu cuntada ka joogsado intaas waa waxyaala soonka buriyo wey kulligood oo ay muhiim tahay inuu qofku dhagaysto inuu qofku ogaado ay muhiim tahay waxyaalaha marka soonka buriya qaacido koobanna waa leeyihiin wadaabidu lmufatiri ama muftiri waxa wax afuriya waxaa noo koobayaa waxa weeye wusuulu caynin shay cayna oo la taaba karo la arki karo in ay gaarto wa in qalad haba yaraatee min manfadin meel ay ka gaarto maftuuxin furan ilaa jawfin xabadna ay gaarto furitaankaas xataa hadda ha la furo maalan baqaliin ha lagu sameeyo markaasaa feerihii la daloolsho
kaadi haystiyaa la daloolshay, calooshiyaa la daloolshay. marka in wax cayna ay gaaraan. cayntaas marka waxaa ka mid a cayntaas bahalka oo neefta loo isticmaalo oo inhalerka la yidhaahdo dadka neefta qabata ay isticmaalaan, daawo ayaa ku jirtaa la yidhahda, cayn ayaa ku jirtaa la yidhahdaa. marka qofkaas hadduu isagoo sooman bahalkaas isticmaalo, soonkiisu waa burayaa isagoo og hadduu isticmaalo. laakiin shareecadu xal ayay kuu keento, kuma dhihin neeftu ha kugu dhegto dhimo. marba haddii aad gaartid xaalad aad naftaada u baqdid oo neeftaada u baqdid ee aad isticmaalkiisa ku qasban tahay inaad afurtida lagu baneeyey, hadhowna aada soo qalaysid. laakiin daawaan iska isticmaalaya oo iska cunaya waana soomaya ma jirto. waayahay waljimaacu jimaaci iyo soonka waa buriyaan. wal inzaalu iyo biyodejintii can mubaasharatin, mubaasharo xaaskiisa uu la cayaaray uu ku biyodejiyo oo shahwadii kaga timaado ayaa soonka burinaya. aw istimnaa'in biyo uu gacantiisa iskaga keenay ama tan xaaskiisa iskaga keenay. hadda gacantiisa inuu iskaga keeno waa xaaraam wey, soonkuna waa kaga burayaa. ama xaaskiisa gacanteedu shahwadii iskaga keenay, soonku waa ka burayaa, laakiin xaaraam kama ahan marka kale. laakiin markaas la sooman yaha waa xaaraam. caaliman asagoo og bitaxriimi arrintaasi inay xaaraam tahay, daakiran haddana xusiista lisawmi soomka xusiista. wixii intaas hadduu sameeyo cayna gudihiisa gaarto, ama jimaac uu sameeyo, ama uu haweentiisa la cayaaro biyo sidaas kaga yimaadaan, ama uu gacantiisa biyo iskaga keeno, waxaasoo dhan soonkana uu xusiista xaaraam inay taa ogyahay, soonkiisu waa buraya. meeshaan mas'aluu noo sheegaya. mas'aladan waxa weeye qof nin sooman maalinkii haddii xaaskiisa uu u tago asagoo og inuu sooman yahay, oo si ula kaca xaaskiisa u jimaaco, jimaacaasna uu ku afuro wax kale aysan ka horreyn, soonkiisu waa burayaa. kafaaro wax leeraahana ku waajibaysa. kafaaradaasi waa addoon la xoreeyo, hadda maba jirto. laakiin maxaa hadda ka bilaabanaya? inuu 2 bilood oo xiriira soomo, hal maalin uusa geyn. hadduu 58 beri soomo ee maalinkii 2 bilood mid naaqis aheed oo 59 ay ahayn ay ka burto, soonkuu soo celina soo bilaaba. marka waxaa loo adkeeyey in uu maaragtay qofna uusa fududaysan. haddii uu 2daas bilood uu awoodi waayo, xaaladaha ka mida uu la awoodi waayo, 60 masaakiina inuu quudiyo imaanaysa. wa talzamhu ruuxii waxaa ku waajibaysa liifsaadi sawmi soomkiisuu fasahaadiyey waxaa kula waajibaya fii ramadaana ramadaanka uu fasahaadiyey, ramadaanka dhexdiisa, biljimaaci jimaacna uu ku fasahaadiyey, xaaskiisu u tag uu ku fasahaadiyey. maca alqadaa'i qalla micigiisa waxaa waajib ku ah alkafaaratu kafaaro. ninka hadduu xaaskiisa jimaaco maalinkaas ee soomkiisii sidaas ku buro isagoo og, qallo horta waa laga rabaa kow, kafaara gudna waa laga rabaa, hon sheegi doono. waxaa kaloo laga rabaa maalinka inta ka hartay inuu af haysto, tacsiirna iyo inuu qaadigu ku dhiftana waa qasab. wahiya kafaaradii cidqu raqabatin addoonoo la xoreeya weye, taasoo muuminatin muuminad ah, taasoo saliimatin nabad gashay min alcuyuubi ceeba ka nabad gashay, cuyuubtii almudirati ee dhibaysay, bilkasbi shaqada dhibaysay. masaladan marka hadda addoontaas in la xoreey wey hadda maba jirto, waxba sharaxaadeeda inaan ku dheerano uma baahnayn. fain lam yajid haddii uusa helayn addoontaas maba sidoo haddoo kale, fa siyaamu shahrayni 2 bilood inuu soomo ayaa waajib ku ah, mutataabicayni ee xiriirta. 2 bilood oo xiriirta hal maalin uusa goyn. fain lam yastadic hadduusa awoodinoo sababaha ka mid hadduu la awoodi waayo, isagii ilaahayaa isog soomaa, fa itcaamu 60 inuu quudiyaa waajib ku ah, miskiinan ee masaakiin ah. fain cajaza haddii uu ka caajizo awoodi waayo inuu 60kii quudiyo, haddii uu awoodi waayo, habatat kafaaradii way ku sugnaatay fii dimati, waa lagu sii yeeshaa. marka ninka garanay ee gabadhii maalan ninka hadduu xaaskiisa u tago kafaara ku waajibta soo maha, soonkii qallihiisii iyo dembigii iyo waxaasoo dhan waa gooni, waa lagu wada leeyahay hadday ayana og tahay. laakiin ayada kafaarada ma lagu leeyahay? maya, ayada laguma leh. walaa tajibu ma waajibayso kafaara cala almawduucati, haweenaydii loo tegay oo ninka u tegay kafaaratun kafaara kuma waajibayso, laakiin dembigii ku jirtaa, soonkii qallihiisii ku jirta laga rabaa, maalinkii inay cunto aysan dib damba wax u sameynaa laga rabaa. fain facala waxaan marka kafaaradan waa inuu og markuu jimaacaasi waa inuu ulakac ku sameeya, haddii aysan ulakac ahayn waata. fain facala haddii uu sameeya jamiica daalika arrinkaasoo dhan
naasiyan xaaluya kii ishalmaansan uu sameeya isagoon ogeynba aw jaahilan asagoo ka jaahilo inay wax dhibayso qof oo meel islaamka ka fog macnaha wuxuu kusoo barbaaraba hadduu soo islaamaba ama waa qof oo kusoo barbaaray meel oo maaragtay culamo ka fog culamo waxaa laga daa masalan dad yaqaan aw mukrahan waa la qasbay oo xaaskiisa inuu utagaa lagu qasbay laakiin zina sida kale la iskuma qasbi karo waayahay aw qalabahu lqay-u matagi ayaa soo dhaafay matagaa kasoo baxsaday haye aw anzala macnaa matagu isma matajin waa kasoo baxsaday aw anzala ama waa uu biyo dejiyey shahwadiyaa ka timid bixtilaamin qarow ayuu shahwada uga timid aw can fikrin tafakuroo jimaacu ku fakaray aw nadarin ama fiiro xaaskiisa uu fiiriyey markaasuu biyihii soo dhaafeenba aw nazala almaa-u ama biyihii ayaa kasoo degay biyo caadiya ayaa galay jawfahu xabadkiisu calooshiisa bimadmadatin luqluq ayay ku galeen aw istinshaaqeen sandaarsi bilaa mubaalaqatin asagoo ku xeel dheeraan tii hore soonka burinaysa waxay ahayd haddii adigu aad xoog u jiidid laakiin maantay waxa weeye ma aadan jiidina waa kugu fakadeen aw jara riiqo ama candhuuftii ayaa waxay qaadatay bimaa shay ayaa candhuuftu qaadata baqiya haray min addacaami cuntadii ka haray fii khalali asnaanihi ilkihiisa dhexdoodana ku haray bacda takhliilihi marka uu findhicishay ka bacdi wacajaza waana uu ka caajizay can majhi tufidiisa tanna waxa weeye markii uu cunteeyey ayuu cuntadii iska findhicilay ilkihiisa dhexdooda wax ku haray oo uu awoodi waay inuu soo saaro ayaa hadhow candhuufta inta qaadatuuba laqaba asagoo isogeyn aw amase jamaca wuxuu kulmiyey riiqahu candhuuftiisa macnaha taas dhib mala marka aw amase jamaca wuxuu kulmiyey riiqahu candhuuftiisa fii famihi afkiisa dhexdiisuu ku kulmiyey candhuufta caadiga ah oo saafida maahan xaakadii afkiisa ku kulmiyey wabtalacahu waana laqay sirfan xaaliyo kii saafi ahoo aan najaasoobin wax kale ku darsamin xaaka ku jirin candhuuftiisa caadiga ah u laqay inta kulmiyey aw akhrajahu ama waa uu soo saaray candhuuftii calaa lisaanihi carabkiisu kusoo bixiyey huma raddahu waa celiyey wa balacahu waana laqa dhib male marba haddii shay kale aadan ku bixin ee candhuuftaada caadiga ahayd inta kulmi sidoo carabkaaga aada banaanka kula soo taagtid kabacdi aad laqdid dhib male waayahay aw iqtalaca wuxuu soo fujiyey nukhaamatan xaaka ayuu soo gooyey min baatinihi gudihiisa maskaxdu kasoo gooyay ama xabadka feeraha falafadaha waa iska tufay dhib ma laho soonka ugama burayo lama leh xaakadaasi waa ay soonkaagay burisa lama leh waa nin ismatajior kala lamidka lama leh aw talaca alfajru ama waagaa ku baryay walxal fii famihi afkiisa uu ku jiro dacaamun cunto falafadahu waa iska tufay waagiya ku baryay soo afka cunto kuway markaasu iska tufay aw kaana ama wuxuu ahaaday mujaamican mid jimaacaya xaaskiisa waagii markuu baryay fa nazala waa uu ka fogaaday fi lxaal isla markiiba waagi markuu ogaada inuu baryu ka fogaaday aw naama ama maaragta waa uu seexday jamiica nahaari maalinki o dhan uu hurdaay hurdada maalinka o dhan la hurdo soonka ajarkiisa waa yaraynaysa laakiin soonka ma burinayso aw uqmiya ama maaragtay waa la suuxiyey calayhi shaqsigii fiihi maalinkii o dhan uu suuxsanaa wa afaaqa wuxuuna soo naaxay laxdatan waqti yar oo minhu maalinkii ka mida uu soo miirsaday lam yadura waxaas aan soo sheegno dhan ma dhibaan hu soomkii fii jamiici dalika lam yadurahu shaqsigii ma dhibaan madkuurkaasi ma dhibo hu shaqsigii fii jamiici dalika arrinkaasoo dhan intaan soo sheegno oo hadda dambe soonka kama buriso wayasixu sawmuhu soomkiisuna waa ansaxaa waidaa akala haddii uu wax cuno muctaqidan xaaluya kii aaminsan annahu waqtiga uu wax cunaya leylun habeen inuu yahu wax iska cunay fa baana waxaa u caddaaday annahu waqtigaasi nahaarun maalin inuu yahay habeen inay ahaadu moodayay wuu iska cunay suxuurtiisii inay maalintaa u caddaatay aw akala ama wuxuu cunay daanan xaaluya kii malaynaya alquruuba qoraxdii inay dhacday wastamara alishkaalu shakigiina waa sii socdoo waa kala caddaawaaye qoraxdi ma dhacda mise ma dhicin wajaba alqadaa qala ayaa waajiba marba haddii waqtiga xunayd aysa ogeyn inay habeeneedii maalin ahayn maalin miyeed mase habeenaa ku shakiday qala waajiba wain danna haddii uu maleeyo
ana alfajra waa berigii lam yadluc ma dhalan faakala wuu cunay wastamara alishkaalu ishkaalkiina yani shakigii waa sii socday falaa qadaa qalla ma jiro. macnaha waad suxuuratay adoo ku shakisan, adoo isla waagu ma baryina isleeda, ishkaalkii waa sii socday marka suxuurtaad marka cunta ka bacdi waxba kuma cadaan, qalla lagama rabo. laakiin tii hore maxay ahayd? waagu ma baryin adoo isla had wax cuntay, waxaa kuu caddaatay inay maali ahayd, waa kuu caddaatay, laakiin tan kuuma caddaan. hadayse kuu caddaano in waa beri ah wax cuntay iyo inaa habeenkii wax cuntay ayse kuu caddaan, soonkaaga waa kuu jiraa. laakiin ka warran haddaad dadka qayb waxaa sameeyaan baadiyahay, waagoo baryay intaa wax cunaano isduubaano isdadadaan si ay iskaga dhigaan wax habi cuna, khatar waa, ilaahay waa ku ogyahay. wain dara-a haddii uu soo kordho fii athnaa'i nahaari, maalinkii dhexdiisa waxaa soo kordhay junuunun waali, maalinkii dhexdiisii ayaa waali soo korortay qofka waasha, walow fii laxdatin waqti yar haba ahaato minhu maalinkii ka mid ahe. hadduu qofku wax yar maalinka waasho, qofba mar hadduu waali soo gasha meesha cibaada ehelkeeda waa ka baxa. aw istaqraqa wuxuu maasheeyey nahaarahu maalinkiisiiyuu biliqmaa'i suuxdin ku maasheeyey, maalinkiisii oo dhan uu suuxsanaa, wax yarna ma soo miirsan. aw dara-a ama maaragtay waxaa soo kordhay calayha gabadha korkeeda xaydun caado aw nifaasun dhiig umuleed, batala soomku waa buraa. intaasoo dhan waali maalin wax yar haba ahaato, ama suuxdin maalinka oo dhana, ama xaydkii nifaaskii soomku waa buriyaan. masaa-il sunahu markaa noo sheegaya. wayndab waxaa la sunneeya asuxuuru suxuura la sunneeya. wain qalla haba yaraado walow bimaa-in biyo haba ku suxuurtee. walafdalu sida fadliga badan taakhiiruhu suxuurta in la dibdhiga waaye, maa lam yakaf hadduusa ka baqin asubxa subax. haddii subaxa ka baqaysid, weliba wadamadan qurbaho oo aan waagu markuu baryay lagu shakisan yahy o laisku khilaafsan yahay, inaad iska dibdhigin afiican. walafdalu sida fadliga badan tacjiilu lfitri afurki inuu dadejiyo weeye idaa taxaqaqa alguruubu, dhicitaanku hadduu xaqiiqoobo, ama idaa taxaqaqa hadduu hubsado alguruuba dhicitaankii, laakiin adoon hubsan ha afurin. wayufdiru waa afuraa calaa tamaraatin timiryaal ayuu ku afuraa sida fiican, witran xaalayta tii isdheer. fain lam yajid haddii uusa helin timirtiina falma bihiya fadli badan, weliba macaanka siday u kala macaan yasay fadli badan. wayaquulu wuxuu yidhaha allaahuma ilaahu laka adiga ayaan sumtu kuu soomay, wa calaa risqika arsaaqdaadana afdartu ku afuray. ducadaas sunna. marka timirta waxaa sunnaa, laakiin markii aad salaadii tukanaysid inaad ka cadaysatid ama ka luqluqatid oo macaanka afka kaaga buuxa aada ku tukan. wayundab waxaa la sunneeya kathratu ljuudi, deeqsinimadki in la badiyo, iyo wasilatu raximi, qaraabo xiriiriskii in la badiyo, qaraabadii la xiriiriyo soomka. wa kathratu tilaawati lqur'aan, wa kathratu tilaawati akriskii qur-aanka in la badiyo. waliqraa'i iyo akrisiintii dadkii la baro oo in la badiyo oo dadkii la barayay soonka qur-aanka waa yahay. walictikaafu ictikaafkii in la badiyaa fiican oo sunno ah. siyama kumaba sii jirto alcashru, siyama alcashri tobankii kuma sii jirto alawaakhiri dambeeyey. wa an yufatira inuu afuriyaa sunno ah assuwaama dadkii soomanaa walow bimaa-in biyahaba ku afuriya ajarkiisu u helo. hada biyaha meeshoodaad ku siinaysa mahan inta gurigaaga u kaxaysid dadka soomana masaakiinta inaad biyo kaliya siidid maaha, laakiin dad masjidkii iyo aad ku bilaabi kartid biyahaaga, taasaa laga hadlaya. laakiin qof sooman inta kaxayday oo dad kala afuri lahayn inaad gurigaaga inta geydid aada biyo kaliya sideed dirtid, khatar waa. wa taqdiimu guslilljanaabati, janaabadii qubayskeedii in la hormariyo ayaa sunno ah cala alfajri, waa beriga laga hormariyo. oo qofka waagu waa u baryi karaa isagoon qubaysan, janaabadii aan ka qubaysan. laakiin haddii ay dhacdo in waagu ku baryo isagoon janaabadii ka qubaysan, soonkiisi sax wey, marka salaada subax u qubaysanaya. su-aashaas markasta dadku waa weydiyaan. wayaxrum waxaa xaaraama tarku lgiibati, macnaha wayaxrumaa wa tarku lgiibati, xanti in laga tagaa sunno ah. macnaha waa sunna marka meeshaan laleeyahay. mar kastaba horta xan iyo been iyo waxaaso dhan in laga taga waa waajib, laakiin soonka hadda dhexdiisay sunno sii yihiin oo sii adag yihiin laga wadaa. wa tarku lgiibati, xanti in laga tagaa sunnaha soonka dhexdiisa, iyo walkadibi beentii, iyo walfuxshi hadalkii xumaa, wixii xumaa oo fil qowli hadala, iyo washahwaati shahawaadkii in laga tago waayahay, iyo walfasdi sarsaridii iyo dhiig qofka in laga keeno ama dhiig laga qaadaba, iyo walxijaamati toobinkii in la sameeyo in ma fiicna, waa karaahiyo, qofku waa daciifaya.
fain shuutima qofkii haddii la caayo falyaqul ha yidhaahdo inii saa'imun waa soomana. wa taxrum waxaa xaaraama alqublatu dhunkoosho, ninku xaaskiisa inuu dhunkoodo. liman ruux ayay ka xaaraam tahay xarakad ay dhaqaajinayso shahwatahu shahwadiisa. qofkii shahwadiisa darangalayo inuu dhunkoodo xaaskiisii ma la ogola. walwisaalu soonkii in la isla xiriiriyo maanta inta soontid berrina aad ku daba qabatay adoo aan furin waa xaaraam, nabiga lagu khasisa. bianlaa yatanaawala waaba inuusa qaadan fi leyli habeenkii dhexdiisa shay-an waxaba lama ogola. falow shariba hadduu caba maa-an biyo walow jarcatan halkaba haba ahaato cinda saxari suxuurta agteeda falaa yaxrumu xaaraam maahan. haddaad kala goydidba soonkaaga jabaysid xaaraam ma ahan aduu haddaa awoodid. wayugrahu waxaa la kadaa dawqu dacaami cuntada in la dhadhamiyo waa karaahiyo, waajibsa xaaraansa ma ahan mar haddaad wax laqayn. wa calkun calalin oo macnaha xanjadi iyo waxaas in la ruugo adoon laqayn waa karaahiyo, laakiin haddaa wax laqaysid waa xaaraamtaa soonku kaa burinaya. wasiwaakun cadayna waa karaahiyo bacda zawaali zuulitaanka agtiisa kabacdi, macnaha duhurka kabacdi shaaficiyada agteeda waa karaahiyo in oo la cadaysado. laa kuxlun indha kuul karaahiya maahan, iyo wastixmaamun qubaysigii asagana inaad indha kuulatidna karaahiye maahan, inaad qubaysatidna karaahiye maahan. maalinka inaad qubaysatid ramadaanka karaahiye maahan. wayukrahu waxaa la kahdaa likulli axadin qof kasta waxaa loo kahdaa samtu yawmin maalinkii inuu iska aamusnaado. waayahay ila leyli habeenkii laga gaaro inuu yidhaha iska aamuso isagoon yani wax macnaa uga jeedin, iska aamuso hadalka inuu ka aamuso karaahiye wey min gayri xaajatin. waxaa fiican carabkaaga inaad dikriga ilaahay ku mashquulisid, qur-aan ku mashquulisid, aamus kaliya laguma cibaadaysto. walaa yajuusu wuxuu yihi waman ruuxi lazimahu uu ku waajibo qadaau shayin shay in la qalleeyo oo min ramadaana ramadaan ka mid ah. qofkii ramadaan qallihiisu lagu yeesho nudiba waxaa la sunneeya an yaqdiyahu inuu qalleeyo mutataabican xaaliya kii israacraacsan cala alfawri degdegna inuu ku qalleeya sunno ah haddii uusan marka hore kas uga tegin. hadduu kas uga tego degdeg inuu ku qalleeyo waajib wey. marka inuu isku xijiyana waa sunno, degdeg inuu ku qalleeyana waa sunno haddii uu cududaar uga tegay. walaa yajuusu ma banaana an yu-akhira inuu dibdhigo alqadaa qallihi ilaa ramadaana ramadaankii kale uu dibdhigo ramadaankaasoo aakhara kale bigayri cudrin cudur la-aan. ramadaanka haddii uu kaa taga maalmo ka mid ahi inaad ramadaanka kala gaarsiidid oo aad halkaa gaarsiiya cudur la-aan ma la ogola. fa in akharahu haddii uu dibdhigo oo ramadaankii kale kugu soo gala adoon qallayn lazimahu ruuxaas waxaa ku waajiba maca alqadaai qalladii waxaa la socda oo kugu waajibaya can kulli yawmin maalin kastana waajib ah muddun koobo oo min dacami raashina, maalin kastaba koobo raashina iyo adoo maalinkaas soo qalleeya. fa in akhara ramadaanayni laba ramadaano u dibdhig, hadda ramadaankii kale haddana kugu soo gala adoon maalmihii soo qallayn fa muddaani laba mudaa sii waajiba maalin kasta. yacni raashinku waa soo laalaabanaya laakiin maalmaha tirsigooda soonkuma soo laabanaya. wahaakadaa sidaasa yatakararu mudkii uu soo laalaabtaa bitakaruri siniina sanooyinka soo laalaabashadooda. waman maata qofkii dhinta wal caleyhi korkiisa uu yahay sowmu soom, qofkii dhinta asoo soom lagu leeyahay soomkaasoo tamakana uu makansaday min ficlihi inuu sameeyo. qofaa dhintay soon ayaana lagu lahaa, soonkaas inuu sameeyana suuragala u ahayd. ucima waxaa laga quudiyaa canhu ruuxaas xaggiisa can kulli yawmin maalin kasta waxaa laga quudiyaa oo laga bixiyaa muddu طacaamin raashin koobadiisa, kooba raashina ayaa laga bixiyaa. waayahay kooba raashina laga bixiya qofkaas, laakiin aimada qaybaa le lagama soomayo, laakiin sida raajixa waana laga soomi karaa. raashinna waa ka bixi kartaa waana ka soomi kartaa. xadiidkii saxiixa man maata wa calayhi sawmun saama canhu waliyu, qofkii dhinta asagoo sooman asagoo soon lagu leeyahay weligiisa ka sooma. faslun fii sawmi tatawuci, soomkii sunnadaha ayaa halkan ka gelayna. soomam sunna oo fudud. yundab waxaa la sunneeyaa sawmu 6 6 in la soomo oo min shawaalin bisha shawaal ka mid a 6 beriyo ciidda ramadaanka ku xigta. wa tundab waxaa la sunneeyaa maalmaha soonkooda mutataabicatan xaalay tati israac raacsana la sunneeyaa taasoo taliil ciidana la xiriirta oo maalinka ciidda kabacdi inaad ku bilowdid iskuna xixijisid banaan fiican. laakiin waa kala geyn kartaa bisha dhexdeed. dadku waxay weydiiyaan haddii ciidda ka waran jumca ku xigsatay ama sabtiga ku xigsatay ama axad waa bilaabi kartaa, maxaa yeele ma ahan maalinkaas soon gooniyeed ku gooni yeesha ma aha.
fain faraqa haddii uu kala geeyo oo iskuma xixijin jaaza banaan. wa sawmu taasuucaa maalinkii sagaalaad iyo wa cashuuraa maalinkii tobnaada bisha muxaramna waa sunno. wa sawmu ayaami lbiidi maalmihii cadcaddaa soonkoodaa sunnaa oo fii kulli shahrin bil kasta ka mid a. bil kasta inaa maalmaha cadcad waa goorma. athaalitha cashara maalinka 13 iyo wa taaliyihi labada la xiriira oo 14 iyo 15 maalmaha bisha dayaxeedu fuulka yahay waxaa la yahaa maalmaha cadcad waa sunna soonkooda. wa sawmu lithnayni walkhamiisi khamiista iyo isniinta soonkooda sunna ah. wa cashru dilxijati 10 bisha dilxija macnaha 9 hore markii laga reebo maalinka 10aad ciidda soonma ansaxee ayaa sunna ah. wal ashhuru bilihi in la soomana waa sunno oo soonka sunnada la badiya alxurum xurmada laha 4 bilood xurmada leh oo maaragtay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waa bilhe wahiya bilhaasi 4 wey. dulqacda waa bisha dulqacda leeraaho bisha xajka bisha ka horeysa wey. wadulxija waa bishii xajka iyo walmuxaram waa midda ka dambaysa oo sanadku ka bilowdo oo bisha xajka ka dambaysa saddexdaas isku xigaan. iyo wa rajabu rajab wey. rajab waa bisha ramadaanka bisha ka horeysa oo shacbaana midda kasii horeysaa leeraa rajab 4 bilood xurmada leeraa. wa afdalu sawmi soom waxaa ugu fadli badan bacda ramadaana ramadaanka bacdi almuxaramu muxaram culamada qaybna waxay yidhahdaan shacbaan. uma rajabu rajab ayaa fadli badan. uma baaqi lxurumi bilaha kaleo xurmada le yani bilaha xurmada le intooda soo hartaa fadli badan. uma shacbaanu shacbaana fadli badan culamada qaybaa shacbaan ka hormariya. wa sawmu yowmi carafata carafa maalinkeeda soonkiisii waa sunno ilaa lilxaaji qofka xajka jooga ma ahan oo bicarafata carafa ku sugan maalinkaas waa sunno soonkiisa. laakiin qofka carafa jooga uma sunno aha oo fa fitruhu inuu afuro afdal u fiican. fa in saamahu haddii uu soomana qofka carafa taagan lam yukrah lama kahdo laakinahu sida u laakinahu ruuxaas taraka wuxuu ka tegay alawlaa sidii fiicneed waayahay. wa yukrahu waxaa la kadaa sawmu dahri sanadkao dhan in la soomo in dara haddii uu dhibo qofkii aw fawata haddii uu ka tagsiinayo xaqan xaq wa ilaa haddii kale lam yukrah lama kahdo. sanadka dhan inaad soontid ma fiicna laa saama man saama alabad xadiidka ahaa haddii uu qofka dhibayo ama uu xaq ka tagsiinayo waayahay hadii kale karahima. wayaxrum waxaa xaaraama oo walaa yasixu aan ansaxayn aslan gebi ahaanba sawmu lciidayni labada maalmood oo ciidda in la soomo ma banaana. wa sawmu ayaami tashriiqi hilbawaradka maalmahooda in la soomo. hilbawaradka goorma waa 3 maalmood oo ciidda carafo ku xigta. ciid weynta carafo oo maalinka 10aad wey maogta 11aad iyo 12aad 13aad wey. wahiya 3 waa 3 maalmood oo bacda aladxaa ciidul adxa ka dambaysa. wa sawmu yowmi shaki maalinka yowm shakiga leera soomkiisana ma ansaxo. wa huwa maalinkaasi an yataxadatha dadkii inay ku sheekaystaan inuu sheego weeye biru'yati aragtidii inay ku sheekaystaan weeye aragtidii bisha yowma 30 soddonka maalinkiisa inay oo min shacbaana shacbaan ka tirsan 30 shacbaan maalinka ah inay ku sheekaystaan weeye man ruux laa yahbutu bishii aysa sugnaanayn biqowlihi hadalkiisa dadkaasaa ku sheekaystayo wax adna maysa sheegino anaa arka ma dhihin oo min cabiidin addoommo ah wa fasaqatin faasiqiina wa niswatin dumar ah. wa ilaa haddii kale oo shuruuddaas aan la helin falaysa biyowmi shakin yowmu shaki laguma magacaabo waa maalin kale iska shacbaan. falaa yasixu ma ansaxayo soomuhu maalinkaas in la soomo can ramadaana ramadaan in laga soomo ma ansaxayso. maalinkaas ramadaan lagama soomi karaba sidiisaba marba haddii aad ahayn ramadaankii adilaha haddaada u hayn. marka maalinkaasi ama shacbaanu noqonayaa haddii shuruudda yowm shaki laga waayo ama shacbaan cadu noqonayaa ama ramadaan cadu mid noqonayaa oo dhanka kale u dhacaya. marka haddii oo ay caddaato inuu yowmu shaki yahay ramadaan lagama soomi karo bal can nadri nadar ayaa laga soomi karaa waayahay. wa qadaa-in nadar iyo qado waa laga soomi karaa. wa ama atadawucu sunnadii bihi maalinkaas lagu tadawuco oo sunno maaragtay la sameeyaa sunnaa la soomaa. fa in waafaqa haddii uu waafaqo caadatan caado qofka oo lahu shaksiga usugnaatay macnaha waa caadu ulahaayo macnaha wuxuu soo samay jiray mathalanba maalinka isniinta uu soo soomi jiray waa ugu soo aaday. ow amase wasalahu wuxuu la xiriiriyey soonkan bimaa soon ayuu la xiriiriyey qabla nisfi shacbaana shacbaan
niskiisa ka hor ahaaday oo waxa weeye horu usoo soomi jira waayahay shacbaan ka horu soo bilaabo soom niskiisa ka hor macnaa 15 dambe lama ogola ina soom bilowday ka horaad soo bilowday markaasuu ku yimid maalinkan saxa soonka waa ansaxa wa ilaa haddii kale xaruma waa u xaaraam noqdaa walam yasixa mana ansaxo haddaan raatibadaas iyo kuugu soo aadin soonkaas ay caadada u lahayd si kale uma ansaxayo wayaxrum waxaa xaaraama sawmu maa shay soonkiisa bacda nisfi shacbaan niskiisa dambe ka dambeeya 15 dambe shacbaan ma soomi kartid in lam yuwaafiq hadduusa u waafaqin caadatahu caadadiisa hadduusa u waafaqin waayahay caadadiisa haddii uusan u waafaqin caadadiisa haddii uusan u waafaqin walam yasilhu uusana la xiriirinayn bimaa qablahu nisfu shacbaanka wixii ka horeeyay oo 15 hore dhexdeeda wax uu soo bilaabo hadduusan u waafaqin haddii laakiin ka waran caadadiisu u waafaqay ama 15 hore uu wax uu soo waday oo u waafaq waa ansaxaysaa markaas wuxuu soo wada ku xiriiri markaas waa ay u ansaxaysaa waman dakhala fi sawmin soom qofkii gala iyo salaatin salaad qofkii gala fardan xaaliyo kii farada madkuurkaas xaruma waxaa xaaraama qatcuhuma inuu jaro xaaraan inaa jarto soon iyo salaad soon farad haddaa gashay ma jari kartid waayahay lama ogola inaad jartid fa in kaana haddii uu yahay soomkii ama salaadii naflan sunna hadduu yahay jaaza qatcuhumaa in uu ruuxu jaro ayaa u bannaan waa jari kartaa waa ka bixi kartaa waayahay waa karaahiyo cudur la-aan haddii ay jirto laakiin cudur haddii uu jiro xaaraanna ma jirto karaahiyo ma jirto faslun fi lictikaafi wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.